بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiintan ah what is a market saturation ama inuu suuq buuxdhaafo market saturation waxaan ku qeexi karnaa inay tahay haqabtirida baahiyaha ka jira suuqa marka la fiiriyo badeecad cayiman ama adeeg midaasoo dhalinaysa in beeci ama kobci ay shirkadda sameynaysay oo hoos u dhaco maadaama aysan jirin macaamiil cusub oo gadanaysa badeecadda ama adeeg ay shirkadda bixiso midaasna waxaa loo yaqaanaa buuxsanka ama buuxdhaafida suuqa sifaha lagu garan karo inuu suuqa gaaray heer xad dhaaf ah waxaa ka mid ah kow hoos u dhac ku yimaada iibka shirkadda ama inuusan wax koror ah samaynin labo tartanka ka dhexeeya shirkadaha oo xoogaysta waayo qolo waliba waxa ay rabtaa sidii ay ku heli lahayd macaamiil cusub oo aanan weli loo adeegin haddii ay jiraan saddex sidoo kale shirkadaha waxa ay bilaabayaan inay qiimaha ku tartamaan ama inay qiimaha ku dagaalamaan ayagoo hoos u dhigaya qiimaha badeecadaha ama adeega si ay u soo jiitaan macaamiil afar sidoo kale waxaa lagu yaqaanaa marka uu suuqa buuxsamo ama uu buux dhaafo waa hoos u dhac ku yimaada hal abuurnimada oo badeecadihii ama adeegii badi waxa ay leeyihiin sifooyinkii ay lahaan jireen oo wax cusub laguma soo daro haddii ay jiraanna ma ahan wax weyn si aan xogtaas u fahanno aan isla aragno tusaalahan ku saabsan suuqa moobilada intii ka dhexaysay 2010 ilaa 2015 suuqa moobilada waxa uu lahaa kobac fiican waayo dad badan ayaa marba qolo kusoo biiraysay si ay u gataan moobil casri ah balse xaaladda hadda lagu jiro waa inuu suuqii buuxsamay oo badi qof waliba oo awooday inuu moobil casri ah gato wuuba haystaa shirkadaha sida Apple iyo Samsung hadda waxa ay ku tartamaan sidii ay ugu dhiirigelin lahaayeen macaamiishooda inay sanad waliba ay gataan moobilka sanadka soo baxay sidoo kale shirkadaha waxa ay ku dadaalaan sidii qolo waliba ay u heli lahaayeen macaamiisha shirkadda kale sidoo kalena waxa ay ku soo daraan sifooyin cusub oo ay rabaan inay uga socnaadaan shirkadaha kaleeto aan moobilkii ay soo saareen sanadkii ka horreeyay gunaanad market saturation waa marxalad ka tirsan heerarka kala duwan oo ay soo marto badeecadaha ama adeegyada midaasoo ku dhiirigelisa ama tusisa in shirkadda ay u baahan tahay inay isbeddel la timaado si ay u joogtayso kobaceeda hadda kahor ayaan ka soo hadalnay demand supply iyo product life cycle ee fadlan ka dhigayso lifaaq hoose rabbanaa taqabbal minna innaka anta as-samiicul caliim mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo